BBC oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo bartana internetka ee bbcsomali.com. wanaagsan dhagaystayaal, saacadda Afrikada Bari haatan waa 2 duhurnimo. qodobadan maanta idiin haynana waxaa ka mid ah Puntland oo xanibaad ku soo rogtay socodka gaadiidka Somaliland iyo Puntland kadib dagaalkii Tukaraq. Kuuriyada Koonfureedna waxa ay qafiifinaysaa cunaqabataynta ay hore u saartay Kuuriyada Waqooyi. qaraxyo ka dhacay meelo kala duwan oo Soomaaliya ah oo lala beegsaday ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM. sidoo kale waxaan idiin haynaa waa haweeney dadka ka oohisa oo ku nool jigjiga oreysi xiise leh aan idinkaga hayno. dabcan cayaarihiina barnaamijkeena kama maqna. barnaamijka waxaa soo saaray Cabdulqaadir Yuusuf Cali, anigoo Faadimo Maxalin Abuukar ayaa idinla socodsiinaya. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida, waa kan Maxamed Cabdiraxmaan oo soo jeediya. mahadsanid Faadimo. Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa gaaray heshiis ogolaanaya in xukuumadda Pyongyang ay wafdi u soo dirto ciyaaraha Olympiga qaboobaha ee bisha dambe ka dhici doona magaalada Pyeongchang. wadahadallada oo ahaa kuwii ugu horeeyay ee labada Kuuriya dhexmara muddo 2 sano ah ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed waxa ay sheegtay inay ka baaraandegayso sidii ay xanibaadda uga qaadi lahayd mas'uuliyiinta waqooyiga si ay uga qayb galaan ciyaaraha. militariga Suuriya ayaa sheegay in Israa'iil ay weeraro isxigxiga ka fulisay deegaan u dhow caasimadda Dimashq, ayna weeraradaasi ka lug lahaayeen diyaaradaha dagaalka iyo madaafiicda dalkaasi. mucaaradka Suuriya ayaa sheegay in bartilmaameedku ahaa xarun hubka lagu kaydiyo. dowladda Suudaan ayaa sheegtay inay awood u adeegsan doonto xakamaynta dibadbaxyo ka dhashay sicirka rootiga ee sare u kacay. qiimaha rootiga ayaa labalaabmay jimcihii kadib markii dowladda Suudaan ay 3% kordhisay qiimaha burka. booliska Singapore ayaa sheegay inay qabteen 17 nin oo looga shakisan yahay inay ku lug lahaayeen shidaal cayriin ah oo laga xaday warshada ugu weyn shirkadda Royal Dutch Shell ee ka shaqeysa shidaalka. shidaalkaasi ayaa bishii August ee sanadkii hore waxaa laga xaday warshada ugu weyn ee ay shirkadaasi ku leedahay deegaanka Bulabukom. ugu dambeynna maxkamadda ugu sareysa dalka Hindiya ayaa laashay amar muran badan dhaliyay kaasoo ku qasbaya shaneemooyinka inay ciyaaraan heesta calanka ka hor inta aanay soo bandhigin aflaamta. amarkan ayaa la soo saaray sanadkii hore waxaana dadka diiday lagu xukumay in la jirdilo iyo in la qabqabto. warkii caalamkan waa naga inta. mahadsanid Maxamed. dhagaystayaal, iminkana u diyaar garooba qaybaha kale idaacadeena. waa hagaag dhagaystayaal, aan ku bilownay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdulaahi Faraweyne ayaa soo saaray go'aan uu ku xanibayo gaadiidka ka yimaada Somaliland iyo waliba kuwa ka baxa Puntland. arrintan waxa ay ka dhalatay dagaal shalay labada dhinac ku dhexmara deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool. haddaba saameynta go'aankan uu yeelanayo ayaa waxaan goor dhaweyd ka wareystay wariye Axmed Cawil Jaamac oo Garowe ku sugan. aad baad u mahadsantahay Faadimo. sida la socotay shalay dagaal baa wuxuu ka dhacay Tukaraq oo Puntland iyo Somaliland ayaa dagaalkaasi u dhex maray. halkaasna waxaa ka socday lama shalay dhaqdhaqaaqa ciidan oo Puntland iyo Somaliland labadaba ay ka wadeen. waxaa ka dhashay iska horreeyaadkaasi in Puntland ay gaadiidka ay ku soo rogto xanibaad. warbaahinta gudaha waxaa la hadlay gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Cabdulaahi Faraweyne. waxa uu sheegay in ilaa amar dambe ay baabuurta dhinacaana iska bixi karin, dhinacaasna ay ka soo bixi karin. Axmedow, waxaad inooga warantaa socodka labada dhinac baaxadda uu markii hore lahaa. sida la socotay wadada isku xirta Hargeysa iyo Garowe waa mid aad u mashquul badan. dadka Hargeysa ka imaanayana aad bay u badnaayeen, dadka halkan ka tegayana way badnaayeen. waxaa inta badan Garowe uga imaanaya dad badan oo soo doonta baasaboor Soomaaliga ayuu ka yimaada deegaanada Somaliland. marka arrintaas iska socodku waxa uu ahaa mid aad u badnaayeen. ka waran dhinaca ganacsigana ma saameyn doontaa go'aankan?
go-aankan dhinacyo kala duwan oo aad u fara badan ayuu saameyn doonaa. ganacsigu saameynayaa, waxa uu saameynayaa arrimaha caafimaadku saameynayaa. sida la socotay deegaanka Somaliland iyo Puntlandta mararka qaarkood waxaa dhici karta inay aad arrimaha caafimaadka iyo dad bukaana oo xagga loo qaadayo inay jiri kartaa baa dhacda. waxaa dhici karta waxbarashada xaggeeda inay saameyn ay ku yeelato. Somaliland dad u aadaa jira waxbarasho, dhinaca kale dad ka yimaadaa jira oo dhinaca waxbarasho usoo doonta. waa tahay marka muddada ay xanibaadan soconaysa ma la sheegay? ilaa hadda si waafiya loo sharaxin, hase yeeshee waxaa jira mar uu ka hadlayo gudoomiyuhu warbaahinta gudaha, waxa uu sheegay in ay gadaal ay kasoo sheegi doonaan, laakiin wakti ma uusan qabsan cayiman. wariye Axmed Cawil Jaamac oo garow ku sugan oo qadka telefoonkii ugu waramayay ayuu kaasi ahaa. haatana Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegtay in laga yaabo inay si ku meel gaar ah u qafiifiso cunaqabataynta ay saarta Kuuriyada Waqooyi. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Noh Yoo-duk ayaa shir jaraa'id ka sheegay in tallaabadan ay u suuragelinayso ciyaaryahanada dalkaasi inay ka qayb qaataan ciyaaraha Olimbikada ee xilliga qaboobaha. in Kuuriyada Waqooyi ay ka qayb qaadato ciyaaraha Olombikada ee lagu qabanayo Pyeongchang waa wax loo baahnaa. waxa ayna hormarinaysaa nabadda. waxaanu tixgelin doonaa in Kuuriyada Waqooyi laga qaado cunaqabataynta haddii ay lagama maarmaan noqoto, innagoo la tashanayna guddiga qaramada midoobay u qaabilsan cunaqabataynta, Maraykanka iyo wadamada kale ee muhiimka ah. dhanka kalena afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo lagu magacaabo Lu Kang ayaa sheegay in Shiinaha uu soo dhaweynayo wadahadalada labada dhinac. waxa uu sheegay in dhammaan dalalka ay qusayso nabadda gacanka Kuuriya ay tahay inay ka qayb qaataan sidii wadahadaladaasi ay u noqon lahaayeen kuwa miro dhala. 북한의 평창 동계올림픽 참가는 waxaanu rajaynaynaa in wadahadalladan ay horseedi doonaan in xiriirka labada dal uu sii wanaagsanaado. dib u heshiisiintan iyo xiriirkanna waa bilow fiican oo fududaynaya xaaladda ka alowsan gacanka. waxaan sidoo kale rajaynaynaa in beesha caalamka ay si fiican u dhiirageliso wadahadallada ayna ka caawiso sidii isfahanka labada wadan uu u sii socon lahaa. waa hagaag dhegeystayaasha fakarkooda arintaasi kasoo dhiibta haddii aan eegno waxaa ka mid ah Maxamed Cali Caalin oo jooga magaalada Balidhiig ee gobolka Togdheer. waxa uu yiri kulanka mas'uuliyiinta Kuuriyada Waqooyi iyo tan Koonfureed ay yeesheen waxay la tahay in xiisadii kululeed ee siyaasadeed ee u dhaxaysa ay soo afjari doonto. sidoo kale Saxardiid Xaashi Ardaale oo jooga Boorama waxa uu yiri kulankaasi ay yeelanayaan saraakiisha labada Kuuriya waa mid aan waxba markaasi soo kordhinayn, waayo colaadda u dhaxaysa labadan dal waa mid gaamurtay oo ay dabada ka riixayaan wadamo shisheeye. waa hagaag dhegeystayaal waxa ay noo soo socdaa faahfaahin ku saabsan qaraxyo ka dhacay meelo kala duwan oo Soomaaliya ah. weli halkaad nagala socotaana waa BBC. ka qaybgal barnaamijyada laanta af Soomaaliga ee BBC oo noogu soo dir fikradaada ama aragtidaadu waxa ay tahay text message. telefoonka nambarkiisu yahay 44 kadiba waxa ay kula tahay BBC Soomaali. waa hagaag dhegeystayaal haatana wararka ka imaanaya dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in qaraxyo wadada dhinaceeda la dhigay oo lagu weeraray ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay dhaliyeen khasaare soo gaaray ciidanka. qaraxyada ayaa ka dhacay gobolada Banaadir, Gedo iyo Hiiraan dhowrkii saacadood ee la soo dhaafay. dhinaca kalena gobolka Hiiraan waxaa laga soo wariyay dagaalo u dhaxeeya ciidamada dawladda oo ay taageerayaan kuwa AMISOM iyo xogaga Al-Shabaab. haddaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno wararkaasi waxaan goor dhoweyd qadka Muqdisho kula xiriiray wariyaheena Ibraahim Maxamed Aadan oo aan markii hore weydiiyay qaraxyada iyo khasaaraha ka dhashay. Faaduma aroornimadii hore ee saaka qarax wadada dhinaceeda la dhigay ayaa haleelay gaari kuwa ciidanka booliska ah oo maraya wadada warshadaha gaar ahaan agagaarka warshada Taraqa iyo sigaarka ee magaalada Muqdisho. dad goobjooga waxay BBC-da u sheegeen in hal askari oo ka tirsan booliska uu halkaasi ku dhintay, mid kalena uu ku dhaawacmay. xarakada Al-Shabaab ayaana sheegatay مسؤولية قرحاسي سيدو كلا فاضما حالي مقالة بلدوينة قرح بمبانا أيا لغو توري سيدا سو كلا عيدن بوليسا أو بركونترول كسوغنا مقالة بلدوينة وحا الليش شاقي إن حل أسكري
uu ku dhintay bamgacmeedkaasi 3 kalena ay ku dhaawacmeen goordhoweynna gobolka Gedo meel u dhaxaysa Buusaar iyo Alwaq waxaa laga soo wariyay in qarax wadada dhinaceeda la dhigay lagu bartilmaameedsaday ciidamo ka tirsan kuwa midowga Afrika gaar ahaan kuwa ka socda wadanka Kenya ilaa hadda lama sheegin ama ma cadda khasaaraha qaraxaasi ka dhashay inkastoo dadka deegaanku ay BBC-da u sheegeen inay maqleen jug culus oo halkaasi ka dhacday Faadumo. Ibrahim dhanka kalena gobolka Hiiraan waxaa la sheegayaa in ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM ay howlgal ka wadaan maxaa faahfaahin ah oo aad arintaasi ka haysaa? Faadumo saaka aroortii ayaa ciidamo ka tirsan kuwa dawladda iyo ciidamo kale oo taageeraya oo ka socda dalka Itoobiya waxay howlgal ka bilaabeen bariga gobolka Hiiraan gaar ahaan wadada u dhaxaysa Beledweyne iyo Matabaan iyo wadada kale ee u dhaxaysa Beledweyne iyo Maxaas. goordhoweyd oo aan telefoonka kula hadlay deegaano ku dhow magaalada Beledweyne waxa ay soo wariyeen in dagaal ay halkaasi ka bilowdeen kuwaas oo dhexmaraya ciidamada dawladda iyo ciidamada Itoobiya oo isku dhinaca iyo xogag la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab barqanimadii ay isku horimaadadaasi dhaceen hadda xabadu way istaagtay dadka deegaankuna ma ogaan karaan khasaaraha dagaaladaasi ka dhashay inkastoo labada dhinac midkoodna aanu ka hadal. aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Ibraahim Maxamed Aadan oo qadka telefoonka Muqdisho ugu waramay ayuu kaasi ahaa. haatana Kenya malaayiin Kenyaan ah oo ay soorta galeyda u ahayd cuntada ay sida joogtada u isticmaalaan ayaa mar kale waxaa soo food saartay caqabad kadib markii la sheegay in soortu ay gabaabsi ku sii tahay dalka. Kenya ayaa waxaa sanadkii tagay ka jirta abaar daran oo saameyn ku yeelata wax soo saarka dalagyo ay galeydu ka mid tahay. haddaba wariyaha BBC-da Bashkas Jug soo dhacay ayaa faahfaahinta arintan inoo haya. dhibaatadan ay markii ugu horeysay waxaa laga dareemay dalkan sanadkii la soo dhaafay kadib markii abaaro kulul ay ku dhufteen dalka Kenya. waqtigaas ayaa dawladda Kenya waxay danta ku qasabtay inay galey ka soo iibiso wadamo kale si ay muctaadka dalka ku nool wadankan ay u kaafisho. galeydii ay dawladda Kenya soo gaday sanadkii la soo dhaafay warshadaha soo saaraan booshada misana ugaalida waxay sheegayaan in galeyda ay dhamaatay. laakiin dawladda dhinaceeda ayaa waxay ku eedeynaysaa dadkaas kale warshadaha inay qarinayaan galeyda si ay ugu faa'iidaystaan waqti dambe. dawladda ayaa dhinaceeda waxay sheegaysaa inay tallaabo culus ka qaadi doonto dadka galeyda qarinaya oona rabaan inay ka faa'iidaystaan. mar ay BBC-da booqatay supermarketyaalka ku yeelaan magaalada Nairobi oo aad loogu gato daqiiqa booshada ayaan waxaan lagu arkin badeecadaas. dadka ku nool dalkan Kenya ayaa waxaa la qiyaasaa 80% inay isticmaalaan daqiiqa booshada oo ina tahay cuntada aan miiskooda laga waaynin. dhibaatadan oo laga dareemay meelo badan oo ka tirsan wadanka Kenya ayaa waxaa la sheegay haddii ay dawladda xal u heli waysa in ay dhibaato weyn ku noqonaysa sababtoo ay tahay badi dadka ku nool wadankan Kenya ayaa aad u xiiseeya cunitaanka ugaalida. kala soco bbcsomali.com waxyaabaha ka dhacaya magaaladaada dalka guud ahaan bariga Afrika iyo caalamkaba. barta bbcsomali.com waxaa ka go'an inay kuu soo gudbiso masawirka dhabta ah ee dhacdooyinka maalin walba iyaga oo maqaliya muuqaalba leh. warbixinadii ugu dambeeyay waraysiyo iyo falanqaynta dhacdooyinka ugu waaweyn bbcsomali.com waxay kuu soo gudbinaysaa arrimaha ka taagan caalamka isla markaa ay dhacayaan. ka qaybgal oo ka dhiibo fikirkaaga BBC Somali Facebook. booqo oo kala soco mobilkaaga wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamkaba bbcsomali.com. mar kasta iyo meel kasta waa bbcsomali.com. waa hagaag dhegeystayaal weli laanta afka Soomaaliga ee BBC ayaad inaga dhageysanaysaan. waxaa inoo soo socdaa sheekadii xiisaha lahayd ee ku saabsanayd haweeney jigjiga ku sugan oo dadka ka oohisa. iminka ciyaaraha haddii aan eegno xalay waxaa la dhelay kulankii ugu dambeeyay ee wareegga saddexaad ee koobka FA-ga kaasoo dhex maray kooxaha Brighton iyo weliba Crystal Palace. guushana waxa ay 2-1 ku raacday ee kooxda Brighton. goolka guusha oo ay Brighton la timid daqiiqadaha ugu dambeeyay ciyaarta ayaa waxa uu dhaliyay Glenn Murray. goolkaasi oo u muuqday mid shaki leh ayaa waxa caadi ku tilmaamay oo aan dood gelin tababaraha kooxda Crystal Palace Roy Hodgson. isla xalay waxa la sameeyay isku aadka wareegga afraad ee koobka FA-ga ee kulamada markaasi
kulamo kale ayaa iyagana markaasi la filayaa in la ciyaaro. haatana jigjiga haddii aan markaasi eegno dhegeysta haddii aad maqli jirtay hebel waa majaajiliiste oo dadka ayuu ka qosliyaa haatan waxaa timid haweeney iyadoo dadka ka oohisa. haweeneydan oo lagu magacaabo maana labishaay hayla maryam waa haweeney u dhalatay qowmiyadda amxaarada balse waxa ay degan tahay magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya waxaana shaqo u ah inay dadka ka oohisiiso. qowmiyadda amxaarada ayaa waxaa dhaqan u ah in reerka uu qofka ka dhintay uu soo kireysto qof dadka ka oohisiiya si loogu murugoodo qofkii markaasi dhintay. haweeneydanna arintaas ayaaba shaqo u ah oo lacag ayaa iyadoo ay ku qaadataa. haddaba hawriye cabdinaasir sheekh maxamed xikam ayaa haweeneydan la kulmay oo weydiiyey marka ay arintaasi bilowday iyo sababta. waxaan biloobay aabahayna wuu dhintay hooyadayna way iiga dhintay ninkaygayna wuu iiga dhintay kaa dabadeed baan ooyay. seed ku baratay adigu in dadka lagu oohiyo? waa dhibaashadaydii iigi bariyay. marka imisa lagu kireeyaa inta badan? inta badan 100 riyaal baa la siiyaa way ooyna. marka qofka inta la soo kireeyo uu ooyayo waa goorma? ma kolku ruuxu dhintaa ma kolka la xabaalaya waa goorma? goorkii dadka dhinto marka caas inta tago bas haga la ooyay. kaa dabadeedna 3 diid dharaarood waa la ooyaya kaa dabadeed ma yaalo. mar kaliya miyaa? waa markaa dhimanaya oo aaska la tagaya maahine ma jiro. marka la aaso lima yimid oo in ma jiro. marka adu hal mar baad ka oohinaysaa dadka? bas hal mar baan ooyaya. dadkoo dhanna halkaa mar bay ku wada ooyayaan? maxaad adeegsataa oo dadkan ka oohinaya oo tusaale ahaan anigoo kale sideed aad iga oohin kartaa? waxaan ku ooyin karaa waxaan sidee ahaa waa la ii sheegayaa sidee dhintay siduu ahaa imisa caruur buu hayaa intaan iri waan kaa dabadeed magacoodii intaan la ii sheego bas sidan ooyaya. marka waxaad sheegaysaa dadka caruurta magacoodii islaanta magaceedii sidii raganimidkiisii saasaad ka sheekaynaysaa? waa sidaa. marka ma nin la heli karaa baad odhanaysaa miya? la heli kari mayo dad dhinta ma la heli. laakiin adiga marka maxaa kugu dhalinaya? dadka qaarkood waxay dhahaan ma indhaha basbaas la iska mariyaa sidee loo ooyaa? marka maxaa kugu dhalinaya oo sidee ku maskaxdaada oohinseed uga helaysaa? waxaan xasuusayaa xaaskaygii idil baan xasuusayaa. xaaskayga ee dhintana kaligaygaan jooga dad markuu dhintay waan ooyayaade. marka xusuustaasaad qalbiga gelinaysaa markaasaad dadkii ku sii daynaysaa? qalbigaygii buu galayaa hor baan dhigayaa xasuustii hor baan dhigaya. bal waxaan rabaa wax yar sida dadka aad uga oohiso. haye dadka idil marka dhimanaya waan ooyaya waan ka ooysiinayaa. laakiin reer jijika oo asli baan ahay suuq yare baan ahay oo intaydu waa original. ሰፈራችንን እንደነው ወገናችንን እንደነው እንደምንናችሁ እግዚአብሔር ናችሁ taasi waxaa dhageystayaal ay ahayd haweeney iyadoo dadka ka oohisiisa oo ku sugan magaalada Jigjiga oo u waramaysa wariye Cabdinaasir Sheekh Maxamed Xikam baafintii ayaa dhageystayaal inoo soo socota hase yeeshee haddii aan dib idin xusuusiyo wararkeena kuwii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa gaaray heshiis ogolaanaya in xukuumadda Pyongyang ay wafdi u soo dirto ciyaaraha Olimbikada qaboobaha ee bisha dambe ka dhici doona markaasi dalkaasi. haatan baafinta waxaa si wada jira stuudiyaha BBC ee magaalada Nairobi idinkaga soo taganaya anigoo ah Caasha Saciid Xasan iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cali. cabdiqaadir mahadsanid caasha. baafinta ugu horeysa maanta waxay naga soo gaartay Nadar Cabdi Salaad oo jooga Wisil. waxa uu baafinayaa Bashiir Cabdi Salaad waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Qatar sanadii 2004. haddaba uu maqlayo Bashiir Cabdi Salaad ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo Nadar Cabdi Salaad iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wisil. aadan Sabriya Nuur oo jooga isla Wisil waxa uu baafinayaa Hidaayo Sabriya Nuur waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan Addis Ababa 2007. haddaba haddii ay maqlayso Hidaayo ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo aadan Sabriya Nuur iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay Wisil. Asli Maxamed Cabdi oo joogta Wisilna waxa ay baafinaysaa Xaliimad Daahir Cali
waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada khartuum ee dalka suudaan sanadii 1994. haddaba haddii ayna maqlayso xaliimo daahir cali ama ay jirto cid garanaysa fadla warkeeda la gaarsiiyo asli maxamed cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. farxiyo nuur cabdi oo joogto isla wisil waxay baafinaysaa saadaam nuur cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada nairobi 1998. haddaba haddii uuna maqlayo saadaam nuur amabay jirta cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo farxiyo nuur cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. kaysar cali siciid oo joogta wisilna waxay baafinaysaa axmed cali siciid waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada sanca ee dalka yemen sanadii 2012. haddaba haddii uuna maqlayo axmed cali siciid amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo kaysar cali siciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. daa'uud xaaji siyaad oo jooga wisil waxa uu baafinayaa aamina saciid jaamac waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka liibiya 2000. haddaba haddii ayna maqlayso aamina amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo daa'uud xaaji iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. zakariya nuur cabdi oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa asli nageeye isaaq waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada goday sanadii 2004. haddaba haddii ayna maqlayso asli nageeye isaaq amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo zakariya nuur cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. farxiyo siciid cabdikariin oo joogto isla wisil waxay baafinaysaa hodan siciid cabdikariim waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka afghanistan 2010. haddaba haddii ayna maqlayso hodan siciid cabdikariim amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo sacdiyo siciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. leyla cabdi siciid oo joogta wisilna waxa ay baafinaysaa hodan cabdi siciid waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada nairobi sanadii 1994. haddaba haddii ayna maqlayso hodan cabdi siciid amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo leyla cabdi siciid iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. falastiin maxamed nuur oo joogto isla wisil waxay baafinaysaa sakariye maxamed nuur waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dirdhaba 2007. haddaba haddii uuna maqlayo zakariya amabay jirta cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo falastiin maxamed nuur iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. hodan carabey cawaale oo joogta wisilna waxa ay baafinaysaa maxamed saciid nuur waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Australia sanadii 2004. haddaba haddii uuna maqlayo maxamed saciid nuur amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo hodan carabey cawaale iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. nageeye xaashi barqadle oo jooga wisil waxa uu baafinayaa maryam xaashi barqadle waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka faransiiska 2000. haddaba haddii ayna maqlayso maryan xaashi amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo nageeye xaashi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. faarax axmed shire oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa nuur axmed shire waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan mustaxiil ethoobiya sanadii 2002. haddaba haddii uuna maqlayo nuur axmed shire amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo faarax axmed shire iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. faarax muuse cabdille oo jooga wisil waxa uu baafinayaa baashi muuse cabdille waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan masar 2014. haddaba haddii uuna maqlayo baashi muuse amabay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo faarax muuse iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. asli maxamed cabdi oo joogta wisilna waxa ay baafinaysaa xaliimo daahir cali waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada khartuum ee dalka suudaan sanadii 1994. haddaba haddii ayna maqlayso xaliimo daahir cali amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo asli maxamed cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. farxiyo nuur cabdi oo joogto isla wisil waxay baafinaysaa saadaam nuur cabdi waxaa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada nairobi 1998. haddaba haddii uuna maqlayo saadaam nuur amabay jirta cid garanayso fadlan warkiisa hala gaarsiiyo farxiyo nuur cabdi iyadoo wixii waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. astur xasan afrax oo joogta wisilna waxa ay baafinaysaa luul cabdiqaadir cabdi waxaa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan xerada qaxootiga ee ifo sanadii 2009. haddaba haddii ayna maqlayso luul cabdiqaadir cabdi amabay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo astur xasan afrax
iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. caasho cusmaan daahir oo joogto gaalkacyo waxay baafinaysaa cusmaan daahir kamaal waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalkani Kenya 2010. haddaba haddii ayna maqlayso caasho ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo cusmaan daahir iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay gaalkacyo. raage yaasiin faarax oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa saalax yaasiin faarax waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Talyaaniga sanadii 2002. haddaba haddii uuna maqlayo saalax yaasiin faarax ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo raage yaasiin faarax iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil ama telefoonka nambarkiisu yahay 2526 mareen xaashi cigaal oo joogto gaalkacyo waxay baafinaysaa Muna Axmed Diiriye waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalkani Kenya 2010. haddaba haddii ayna maqlayso Muna Axmed Diiriye ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo mareen xaashi iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay gaalkacyo. raaga cali siyaad oo jooga wisil waxa uu baafinayaa mudan cali siyaad waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Jigjiga sanadii 2002. haddaba haddii ayna maqlayso mudan cali siyaad ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo raaga cali siyaad iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. caasho salaad jamaal oo joogto baydhabo waxay baafinaysaa saadiq salaad isaaq waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Itoobiya 1997. haddaba haddii uu maqlayo saadiq ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo caasho salaad iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay baydhabo. maxamed shariif bashiir oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa nasteexo shariif bashiir waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Mareykanka sanadii 2001. haddaba haddii aana maqlayso nasteexo shariif bashiir ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo maxamed shariif bashiir iyadoo wax waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. hani cabdi fataax yuusuf oo joogto wisil waxay baafinaysaa xamdi cabdi fataax yuusuf waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan magaalada Nairobi 2004. haddaba haddii ayna maqlayso xamdi cabdi fataax ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo hani cabdi fataax iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. samiira cabdullaahi yuusuf oo joogta wisilna waxay baafinaysaa daahir cabdullaahi yuusuf waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Nairobi sanadii 2010. haddaba haddii uuna maqlayo daahir cabdullaahi yuusuf ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo samiira cabdullaahi yuusuf iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. axmed xasan jaamac oo jooga isla wisil waxa uu baafinayaa abshir xasan jaamac waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Nairobi 2002. haddaba haddii uuna maqlayo abshir ama way jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo axmed xasan jaamac iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. kaysar cali siciid oo joogta wisilna waxay baafinaysaa axmed cali siciid waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan magaalada Sanca ee dalka Yemen sanadii 2012. haddaba haddii uu maqlayo axmed cali siciid ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa la gaarsiiyo kaysar cali siciid iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. faysal cabdi cumar oo jooga isla wisil waxa uu baafinayaa xaawo yuusuf qayre waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Talyaaniga 1999. haddaba haddii ayna maqlayso xaawo yuusuf ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda hala gaarsiiyo faysal cabdi cumar iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. raage cismaan barqadle oo jooga wisilna waxa uu baafinayaa nayruus cismaan barqadle waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Ethiopia sanadii 2007. haddaba haddii ayna maqlayso nayruus cismaan barqadle ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo raage cismaan barqadle iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. qamar nuur cabdikariim oo joogto wisil waxay baafinaysaa jamaal nuur cabdikariim waxa ugu wardambeysay isagoo ku sugan dalka Masar 2007. haddaba haddii uu maqlayo jamaal ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkiisa hala gaarsiiyo amran nuur iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. nadiifa xaaji xuseen oo joogta wisilna waxa ay baafinaysaa Faadumo Qaasin Dayib waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalkani Kenya sanadii 1994. haddaba haddii ayna maqlayso Faadumo Qaasim Dayib ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo nadiifa xaaji xuseen iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ee ku leedahay wisil. daawud xaaji siyaad oo jooga wisil waxa uu baafinayaa aamina saciid jaamac waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Liibiya 2000. haddaba haddii ayna maqlayso aamina ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda ha gaarsiiyo daawud xaaji iyadoo wix waraa loo sii marin karo xafiiska baafinta
bisha cas ay ku leedahay wisil. Iqra Salaad Warsame oo joogta wisilna waxa ay baafinaysaa Anfac Salaad Warsame waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Djibouti sanadii 2010 hadaba deena maqlayso Anfac Salaad Warsame ama way jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Iqra Salaad Warsame iyadoo wixii bara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay wisil. baafinta ugu dambeysana maanta waxay naga soo gaartay Nadiifo Xaaji Xuseen oo joogta Boosaaso waxay baafinaysaa Farxiyo Maxamed Cusmaan waxa ugu wardambeysay iyadoo ku sugan dalka Kenya 1994 hadaba hadeena maqlayso Farxiyo ama bay jirto cid garanaysa fadlan warkeeda la gaarsiiyo Nadiifo Xaaji Xuseen iyadoo wixii wara loo sii marin karo xafiiska baafinta bisha cas ay ku leedahay Boosaaso. baafintina maanta waa naga intaas. aad ayay u mahadsan yihiin Cabdulqaadir iyo Caasho baafinteena la socodsiinayay waxaana u dambeysay idaacadeena duhurnimo. Cabdulqaadir Yuusuf Cali ayaa soo saaray anigoo Faadmo Macalin Abuukar ayaa idin la socodsiinayay tan iyo 5 galabnimo intaan dib uga kulmayno sida iyo nabadgelyo.